بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت وناكسن صاحب يال من البواد جوجتان كنا سنوادا ورركي وقدم بي قضبضا ورركي نوع حكمي ذا ورركي وقدم بي فهد ياسين oo wadnaha jaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale agaasimiye hore nisa oo ku dhawaaqay ninka uu hadda u wato inuu noqdo madaxweynaha kursiga ka ridanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda waxa la wadaagi doona xogta isbahaysigii ugu weynaa oo looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo Finland Soomaaliya oo durba dareemayso qalqal xoog leh oo ku wajahan talaabo oo uu qaaday agaasimiye hore nisa Fahad Yaasin Xaaji Daahir waxaad kula wadaagi doonaa barnaamijyadeedkan shakhsiga cusub ee uu Fahad dhisanayo markan salaamada waxaan idin la wadaagi doonaa barnaamijyadeedkan qayb ka noqon doono macluumaadkii ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda difaaca ee dawladda Soomaaliya ambassador Ahmed Macalin Fiqi oo hadda wajahayo cadaadis xoog leh oo kaga imaanayo dhinaca dawladda Imaaraadka Carabta iyo warqadiisa xilka qaadista oo la horgeeyay Finland Soomaaliya hadda waxaad idin la wadaagi doonaa macluumaad xasaasi warintani ku aadan iyo xogo dheeri ah oo laga helay sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doono Puntland oo markaasi iyaduna qaaday talaabo kale oo ku aadan dawladda federaalka Soomaaliya qorsheeda e-visa mas'uul u hadlay Puntland oo afka furtay ayaynu idin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad saaxiibnigu cusub nagu soo biir muuqaalka like saar aragtida wax dhisaysan ugu dheeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha waa hagaagan ku bilowno wararkeena isbahaysigii ugu cuslaa isla markaasina ay ku mideysan yihiin jilib culusta siyaasadda ayaa looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga haddaba Fahad Shirdoon Saacid Ducaale Taabid Guuleed Hoosow iyo sidoo kale xubno kale ayaa sameystay isbahaysigan oo ah isbahaysi xoog leh oo loo arkayo inuu weeqi karo Finland Soomaaliya hogaamiyaal siyaasadeed oo ka kala socdo ururo xisbiyo iyo madalo kala duwan oo dalka caanka ah ayaana ku dhawaaqay isbahaysigan siyaasadeed oo ballaaran kaasi oo ay kaga midoobayaan ama ay ugu midoobayaan hal xisbi oo cusub warsaxaafadeed ee wadajir u soo saareen hogaamiyaashan oo muddo wada tashi ku jiray ayaa shaaca ka qaaday in xisbigan cusub ay ku midoobeen loogu magac daray midowga haybad qaran kaasi oo musharaxiisuna la cadeeyay midowgan ayaa yimid kadib kulamo isdaba joog ah oo si qoto dheer loogu falanqeeyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo midnimada ummadda hogaamiyaashu waxa ay isla qireen baa yiri dhaawaca gaaray midnimada iyo wadajirka dalka burburka dhaqaalaha dayaca adeegyada bulshada iyo sidoo kale rajabeelka ka muuqanaya dawladnimada go'aanka ugu weyn ee ka soo baxay kulamadan ayaa waxa kamid ah in mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya loo doortay inuu noqdo musharaxa xisbiga ee xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya sida lagu sheegay bayaankan waxa dhawaan magaalada Muqdisho lagu qaban doonaa shirweynaha guud ee asaaska xisbigan kaasi oo si rasmi ah loogu shaacin doono musharaxnimada mudane Shirdoon Saacid hogaamiyaasha saxiixay heshiiskan midnimada ama midoobida oo shakhsiyaadkan saameynta leh ay ku midoobeen halkan xisbi waxa kamid ah Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo ah musharaxa xisbiga mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed mudane Cabdi Aadan Hoosow mudane Dr. Maxamed Abuukar Islow Ducaale mudane Dr. Guuleed Saalax Barre mudane Ducaale Aadan Maxamed iyo Faarax Cali Shire Taabid Cabdi Maxamed iyo Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ah ninka sida la qorsheenayo noqonayo gudoomiyaha xisbiga isbahaysigan culus ayaa la filayaa inuu saameyn weyn ku yeesho loolanka siyaasadda iyo doorashooyinka soo aadan ee dalka marka la eego miisaanka xubnaha ku jira ee ku midoobay dadka siyaasadda falanqeeya ayaa durba sheegaya in rajada Saacid ee ah in uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya ay durba sare u kacday marka la eego isbahaysiga siyaasadeed ee uu qaybtu ka yahay Saacid oo ah siyaasi rugcada ah isla markaasina degan oo leh heer aaminaad sare ayaa dad badan waxay u arkaan inuu noqon karo qofka ka soo dhaxbaxayo loolanka siyaasadeed ee buuqa badan ee Soomaaliya uu yahay mid dhinacyo badan ku qancin kara afkaarihiisa haddaba waxyaabaha Saacid loo arkayo in uu noqon karo musharaxa kursiga ka rita Xasan ayaa waxa qayb ka ah in uu wato Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ah agaasimiye hore nisa nin abaabul badan sidoo kale tan lagu yaqaano in uu ka shaqeeyay dhisidda
laba jeer rag madaxweyne noqday haddaba maxaa ku biirinaysaa aragtidaada hoose ayaad noogu reebi kartaa dowladda waddanka imaaraadka carabta waxaa la sheegayaa in cadaadis xoog leh ay saarayso wasiirka wasaaradda gaashaandhigga axmed macalin fiiqo oo horaan aqalka sare ka sheegay in ay dowladda waddanka imaaraadka carabta kooxo calooshood u shaqaystayaal ay geyso saldhig ku yaalo magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka bari inkastoo fiqi hadalkiisu uusan sinaba ugu cadeynin inay dowladdu caddeyn buuxdo ee sadexadaas haddana qaabku warku u dhigay ayaa dunida si weyn u girgiray iyadoo warbaahintu caalamkuna aada u qaadanayeen haddaba wasiir fiqi ayaa hadda waxaa wajahaya cadaadiskaasi la xidhiidha in xilka laga qaadi karo warqadiisa xilka qaadista ayaana xuquuq qaar ay leeyihiin hadda waa mid miiska u saaran xasan sheekh iyadoo xasanna dooranayo imaaraadka ama fiqi midkood dhinaca kale puntland mas-uuliyiinta arrintan ka hadlayo aad ayay isu soo tarayaan mar kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ayaa ka hadlay arrinta ku aadan tallaabooyinka iyo dowladda federaalka soomaaliya maamulkaas ay ugu eedeynayso inuu gacan ka geysanayo duqeymaha laga wado suudaan iyo arrimo kale haddaba mas-uul u hadlay madaxtooyada puntland ayaa marka hore wuxuu ka hadlay arrinta barnaamijka e-visa waxaana uu sheegay dadka puntland in markay yimaadaan garoomada puntland ay ka qaadan karaan visa on arrival ay markaasi ku qaadanayaan dalkugalka oo aanay u baahnayn markaasi dadka reer puntland ee baasaboorka ajnabiga wato inay e-visa soomaaliya ay qaataan talabadan ayaa ka dhigan in puntland ay si buuxdo ay u qaadanayso mid lamida go'aamadii ay hore u qaadatay somalilan warbixinadaas iyo diin aragtidaada waa noo muhiim hoose ayaad nagu reebi kartaa nabad iyo warsan